dowladda Itoobiya ayaa ku boorisay Mareykanka inuu xiriir diblomaasiyadeed oo toos ah la sameeyo halkii uu Kenya kala hadli lahaa arrimaha quseeya Itoobiya. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Dina Mufti ayaa shir jaraa'id ku sheegay in xukuumadda Washington iyo wadamada kaleba ay soo dhaweynayaan inay wada shaqeyn dhinaca diblomaasiyadda la wadaagaan Itoobiya halkii ay arrimaha quseeya Itoobiya u qaadi lahaayeen meel saddexaad. waxaan ku casuumaynaa Mareykanka iyo dalalka kaleba inay si toos ah noola macaamilaan annaga, ayuu yiri Mufti. Afhayeenka ayaa u muuqday in uu soo gudbinayay fariin ka turjumaysa sida ay Addis Ababa uga carootay tallaabada uu qaaday Mareykanka. wasaaradda arrimaha dibadda waxay ku guuleysatay inay ilaaliso madax banaanida Itoobiya iyadoo dusha u ridinaysa cadaadiska uga imaanaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay, isla markaana dhiirigelinaysa dhaqdhaqaaqa dalalka Afrika, ayuu yiri. waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixiyay xaaladda Itoobiya oo dagaal sokeeye ku jirtay wax ka badan hal sano. hadalka ka soo baxay xukuumadda Addis Ababa ayaa daba socday wararka sheegayay in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu madaxweynaha Kenya kala hadlay arrimaha ku saabsan Itoobiya iyo Soomaaliya. maxay ka wada hadleen Blinken iyo Kenyatta? Anthony Blinken ayaa madaxweyne Uhuru Kenyatta qadka telefoonka kula hadlay maalintii Talaadada ee isbuucani. inta uu socday wada sheekaysigooda, Blinken waxa uu carabka ku adkeeyay in Mareykanku si buuxda u taageerayo dadaalada dhexdhexaadinta ah ee ay wadaan Uhuru Kenyatta iyo wakiilka gaarka ee Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Geeska Afrika Olusegun Obasanjo. bayaan uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayuu ku sheegay in wadahadalka telefoonka iyo madaxweynaha iyo wasiirka gebi ahaantiisaba lagu gorfeeyay arrimaha amniga ee gobolka iyo danaha guud oo ay ku jiraan xaaladaha Itoobiya iyo Soomaaliya. dhanka Itoobiya waxay isku waafaqeen in si degdeg ah looga baahan yahay xabad joojin lagu hakiyo colaadda, fududeynta gargaarka bini'aadanimo, soo afjaridda tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha iyo wada xaajood lagu xaliyo dagaalka, ayuu yiri Price. dhanka Soomaaliya, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in hogaamiyayaasha dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay si degdeg ah u soo gabagabeeyaan doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtinimada, iyo sidoo kale in laga dhigo mid xor ka ah ficilo sharci darro ah wax u dhimi kara saxnimada natiijada, ayuu sii raaciyay. dowladda Soomaaliya dhankeeda ilaa iyo hadda wax war ah kama aysan soo saarin wada hadalka uu xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka la yeeshay madaxweynaha Kenya, kaasoo Itoobiya ay ka soo jawaabtay. Itoobiya ayaa dhexda ugu jirta qalalaase ka dhashay ismariwaaga siyaasadeed oo u dhaxeeya dowladda uu hogaamiyay Abiy Ahmed iyo xisbiga Tigreega ee TPLF, halka Soomaaliya ay ka taagan yihiin xiisado ka dhashay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, iyadoo uu horey u sii jiray ismaandhaaf jiitamayay oo ay ku kala fogaayeen hogaamiyayaasha federaalka iyo maamul goboleedyada Soomaaliya. Mukhtaar Roobow oo lagala baxay hoygii lagu hayay. Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur ayaa lagala baxay hoygii uu Muqdisho ka deganaa ee uu xabsiga guriga ugu jiray. waxaa sidaasi sheegay xubno ka tirsan xisbiga uu hogaamiyo. Dr. Maxamed Nuur Bilaal oo ah xogayaha xisbiga amniga iyo cadaaladda ee hogaamiyaha ka ahaa Abu Mansuur ayaa idaacadda Goobjoog ee Muqdisho u sheegay in loo sheegay in Roobow lagala baxay habeenkii 29 Diseembar isla markaana la geeyay xarunta Habar Khadiijo ee Niisa. Dr. Maxamed ayaa sheegay in ay hadda jirto khatar ay soo wajahayso nolosha Abu Mansuur, isagoo intaasi ku daray in sababta Mukhtaar Roobow lagala baxay guriga ay tahay in lagala cararo cadaaladda kadib markii wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur dalbaday warbixin ku saabsan xaaladda Roobow. markii ay wasiirka amniga dowladda Soomaaliya ku baraarugeen dulmiga lagu geysanayo magaca dowladda ayna tiri arrintaani war ha laga keeno, ayaa waxaa muuqanaysa in kooxdii waxaanay samaynaysay inay mar kale la baxsadeen musharrixii oo ay la aadeen meel aan la garanaynin, ayuu yiri Dr. Maxamed Nuur. annagu waxaan dareemaynaa in nolosha Sheekh Mukhtaar Roobow ay khatar ku jirto, sidaasi darteedna waxaan dalbanaynaa baaritaan degdeg ah. waxaan mar kale dalbanaynaa cadaalad. waxaan ugu baaqaynaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble inuu arrintaani soo farageliyo si madax bannaan looma xaqiijin karo arrintan uu sheegay Dr. Maxamed Nuur Bilaal.
kusimaha agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee niisa gaashaanle sare yaasiin farey oo xalay waraysi siiyey v o e da ayaa sheegay in mukhtaar roobo uu ku sugan yahay guri ku dhex yaala xarunta niisa amnigiisuna uu sugan yahay isagoo intaasi ku daray in mas-uuliyadda ugu badan ee niisa ay tahay in isaga la ilaaliyo. waxa uu sheegay in noloshiisa iyo amnigiisa ay u hayaan sida ay ku sheegeen warqadii uu soo saaray, wuxuuna intaasi ku daray inaysan jirin waxa ku kallifaya inay abuuraan waxyaabo aan jirin. yaasiin farey ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin caafimaad darro ama culays gaar ah oo haysata mukhtaar roobow. xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee loo soo gaabeeyay UNSOM ayaa shaaca ka qaaday in beesha caalamka ay wada hadallo la leedahay dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya si looga hortago in xiisada taagan ay isku rogto dagaal. qaramada midoobay iyo saaxiibada caalamiga waxay xiriir la leeyihiin dhammaan dhinacyada si loogu booriyo inay xiisada qaboojiyaan. waxaa sidaas yiri Ari oo ah afayeenka UNSOM oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters. sida uu sheegay Ari, wada hadallada ayaa waxaa ku lug leh dalal ay ka mid yihiin Mareykanka iyo UK iyo ururka midowga Yurub iyo dhinacyo kale, waxayna arbacadii kulamo kala gooniyaha la kala yeesheen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo golaha midowga musharaxiinta. hadafkooda labada kulanba wuxuu ahaa inay ku dhiirigeliyaan hogaamiyaasha Soomaalida inay hormariyaan danaha wadanka ayna diiradda saaraan si loo saxo khaladaadka doorashada. warbaahinta ayaa ila wareed diblomaasiyadeed ka soo xigtay in muhiimadda koobaad ee beesha caalamka ay tahay in madaxweyne Farmaajo lagu caadiyo in uu faraha kala baxo arrimaha doorashada oo uu u daayo ra'iisul wasaare Roble, welina aysan jirin qorshe loogu qasbayo in filla Soomaaliya uu ka baxo madaxweyne Farmaajo. kaaliyaha xoogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Mary ayaa arbacadii shaaca ka qaaday in ay la hadashay madaxweyne Farmaajo kana dalbatay inuu taageero dadaalada uu wado ra'iisul wasaare Roble. waxaan maanta kala hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baahida degdega ee loo qabo in la joojiyo wada hadallada iyo ficilada xiisada abuuri kara. waxaan ku boorinay inuu ra'iisul wasaare Roble ku taageero qabashada shirka golaha wadatashiga qaran iyo in si degdeg ah loo dhameystiro doorashada si la isku halayn karo. si kastaba haddii Roble iyo midowga musharaxiinta ay ku adkaystaan in ay hawlgeliyaan ciidamada badbaado qaran, waxaa beesha caalamka qasab ku noqon doonta in madaxweyne Farmaajo laga codsado inuu meesha baneeyo. beesha caalamka waxa ay hadda sheegaysaa in Farmaajo ay xakameyn karaan iyada oo aan lagu qasbin in uu baneeyo villa Soomaaliya. Roble iyo musharaxiinta qaar ayaa qaba aragti ah in inta Farmaajo uu villa Soomaaliya dhex joogo aanay dalka doorasho ka dhici karin, ayna muhiim tahay in cadaadis ciidan looga saaro. si kastoo waxaa jira xubno kale oo kamid ah mucaaradka oo qaba in dagaal aan la gelin magaalada Muqdisho. siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo xalay khudbad xasaasi ah ka jeediyay kulan ka dhacay Muqdisho ayaa ka digay halis ka jirta gudaha madaxtooyada oo uu sheegay in ciidamo soo kala horjeeda ay isku horfadhiyaan madaxtooyada dhexdeeda. Cabdiraxmaan ayaa golaha wadatashiga ka codsaday in ay shaqooda ugu horeysa ka dhigaan in ay kala qaadaan ciidamada isku horfadhiya madaxtooyada dhexdeeda ee kala taageersan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. siyaasi Cabdiraxmaan oo sidoo kale ka hadlay taliyayaasha ciidamada ayaa ku baaqay in ay iscasilaan isla markaana booskooda lagu bedelo kuwa aan ka qayb galin dhibaatada dalka ka dhacday 5 sano ee la soo dhaafay. sidoo kale Cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in maamul goboleedyada aysan awood u lahayn in ay boobaan kuraasta golaha shacabka, isagoo xusay in kuraastaasi ay leeyihiin beelo, wuxuuna si weyn uga hor yimid siyaasiyiinta kuraasta u hoos fadhiista madaxda maamul goboleedyada. wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq ayaa cabiray qoraalada ka soo baxay Mareykanka ee ku aadan khilaafka ka dhaxoogan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Mareykanka ayaa 2 goor soo saaray qoraallo u muuqday in ay ku taageerayaan Roble uguna hanjabayaan madaxweyne Farmaajo. kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Mary ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Farmaajo ay ka dalbatay in uu taageero dadaalada uu wado ra'iisul wasaare Roble. qoraal kale oo ka soo baxay Mareykanka ayaa lagu yiri dawladda Mareykanka waxay diyaar u tahay
inay tallaabo ka qaado kuwa carqalada ku ahaa wadada nabadda Soomaaliya. haddaba Maxamed Cabdirasaaq oo waraysiiyay BBC-da ayaa cabiray waxa lagu fasiri karo hadalka Mareykanka iyo waliba dalalka kale ee reer galbeedka iyo waliba wicitaankooda tooska ah ee madaxda Soomaaliya ee iskhilaafsan. dabcan arrintan waxay daba socotay markii maalin dhaweyd khilaaf khatar geliya Soomaaliya dowladnimadeedii iyo wixii la soo dhisayay tan iyo 2001 oo ahayd in Soomaaliya laga dhiso dowlad loo dhan yahay oo sal u yahay dastuur nidaam iyo kala dambeyn ayuu yiri. khilaafkaasi khatarta geliya in dhammaan ay meesha ka baxdo nidaamkii dowladnimo kadib ayaa waxaa dhacday in diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo Afrikaanka iyo cid kasta oo arrimaha Soomaaliya isha ku haysay laga wada hadlay oo ay isweydiiyeen maxaa arrinkan nagala gudboon oo aan Soomaali la qaban karnaa. marka qaar waa iyagii soo saaray war qoraal ah halka qaar kalena ay Twitter-ka soo dhigeen aragtidooda. waxaa taas kasii dambeysay in taleefan lagula soo hadlay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo loo sheegay cid walba iyo wixii ay sameyn lahayd. wasiirkii hore arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa la weydiiyay in isagoo arrintaasi eegaya dhanka diblomaasiyadda dhadhan noocee ayay leedahay miyaa loo fasiran karaa in Mareykanka uu u janjeersaday dhanka Rooble. Maxamed Cabdirasaaq ayaa waxa uu ku jawaabay maya, Mareykanka sidaan muddaba ka wada shaqeynaynay oo aan ka wada hadlaynay sidii Soomaaliya ay doorasho u aadi lahayd muddo 1 sano ahna arrintaasi ayaan ka wada hadlaynay. haddana weli waxa ay u janjeertaa in weli la yiraahdo xalka kaliya waxa ku jira in doorasho la aado ee ma aragtay afgambi iyo nidaam kale oo sharci darro ah oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha shaqada looga joojiyo. waxa uu intaas ku daray sida kaliya ee wax lagu hagaajin karo Soomaaliyana horay ugu socon karto waa in nidaamka sharciga la raacaa doorashadana la aadaa. marka hadalka Mareykankana sidaasi ayuu u socdaa. dadkana waxa ay cabirayaan labada mas'uul keebaa raba inay socoto doorashada keebaa si raba in ay si kale wax u socdaan. marka waxa ay la tahay dadku in ay sidaasi wax u cabirayaan. haddii Mareykanka dan uu ka leeyahay Soomaaliya darteed uu rabo in uu farageliyo iyaga ma sameynayaan. hadday dhacdana cidna ma yeelayso. laakiin marka lagu leeyahay dadkaagii iyo dalkaagii u tur xuquuqdoodana ilaali, marka in hadalkooda uu meel dheer ka dhici doono oo dad badan oo Soomaali ahna ay ku raaci doonaan ayuu yiri Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya.